السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب تقاليقة سو دوادا كسو دوادا channel كينا ورارك أفلانتا فضلا هديا نقو عصوبتاي نقو صوبير وسبسكرايب تصار جنباليل كنفرو أصحاب تادو دانا أسي شاري قراء موقال كنا لايك تصار آد بادو مهدسانتهاي jilaaga yaash waa jilaa filmaantiisa la jecel yahay oo aad loo xiiseeyo markii uu soo metelay filimkii KGF2 ee soo baxay 14 bishii Abriil 2022 filimkaas wuxuu noqday filim guul fiican gaadhay waxa kale uu noqday filimka Kaanada ee lacagaha ugu badan soo xareeya waana filimka saddexaad ee lacagaha ugu badan ka soo xareeyay caalamka sidoo kale waa filimka labaad ee lacagaha ugu badan ka soo xareeyay gudaha Hindiya maadaama filimkan taxanaha ah ee KGF uu guul fiican gaadhay waxa la go'aansaday in loo sameeyo qayb saddexaad soo saare Vijay Kirakandur oo ah soo saaraha filimka KGF ayaa hore u xaqiijiyay in filimkan uu qayb saddexaad uu yeelan doono agaasima Barshanti Niil ayaa isaguna hore u xaqiijiyay in filimkan uu qayb saddexaad uu yeelan doono jilaaga yaash taageerayaashiisa ayaa aad u sugaya KGF3 haddaba wararka dambe ka soo baxa filimkan KGF3 waxaad kala socon doontaa channelkeena wararka aflaanta insha Allah asxaabteeda qaaliga aad baad u mahadsantihiin muuqaalkana like-ta ka ilaawina asxaabtiinana u sii share gareeya waynooyo muuqaalka xiga ee xiisaha leh insha Allah